Soo dhawaada daawadayaasha Ilayska Dunida meel walba aad joogtaan. Had iyo jeer waxaan idiin soo gudbinaynaa xogo badan oo xaqiiqada ku saleysan. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato kanaalkan, subscribe saaro oo furo calaamadda gambalaalka si muuqaal kasta aan soo gelino uu durba kuu soo gaaro. Aad baad ugu mahadsan tahay soo booqashada barteena Ilayska Dunida. Jamhuuriyadda Tunis waxay ku taal waqooyi bari Afrika. Suudaantiisa waxay ku taal waqooyiga iyo bariga Badda Cas. Dhanka galbeed Algeria ayaa ka xiga. Caasimadeedu waa magaalada Tunis. Jamhuuriyadda Tunisia waxaa maamul ahaan loo qaybiyaa 6 gobol. Ilbaxnimo hore ayaa ka soo ilfaxday Tunisia oo lagu metelay magaalada Qartash. Waxay ku beegan tahay qarnigii 9aad ee dhalashada Ciise ka hor. Luqadda Carabiga waa luqadda rasmiga ah. Luqadda Faransiiskuna waa luqadda maamulka iyo ganacsiga. Kani waa diinaarka Tunisia. Dollarku waxa uu u dhigmaa 2.60 diinaar. Tunisia waxay haysataa hubka noocyadiisa kala duwan sida kuwa shakhsiga, dabaabadaha dagaalka, kuwa culus iyo kuwa dhexe, diyaaradaha dagaalka noocyada casriga ah iyo noocyada kale ee hubka. Magaalada Suusa waxaa lagu magacaabaa jawharada xeebta. Waxaa ku yaala meelo badan oo taariikhi ah. Sidoo kale waxaa ku yaala madxafka labaad ee Tunisia marka laga yimaado madxafka Baaruud. Magaalada Monastir waa meelaha ugu muhiimsan dalkaasi. Jasiiradda Jarba waa mid ka mid ah jasiiradaha ugu muhiimsan qaaradda Afrika, waxayna leedahay maktabadda Galala. Mahdiya waxay leedahay harka ugu muhiimsan Tunisia. Tunisia waxay ku taal koonfurta gobol aan xasiloonayn, cimiladuna waxay ku xiran tahay saameyn dhexdhexaad ah. Sidaas daraadeed waa jawi dhexdhexaad ah oo wanaagsan. Qofka ajnabiga ah ee aan haysan wax deganaansho ah in ka badan 5 sano ayuu dalban karaa dhalashada Tunisia. Dadka reer Tunis waxaa lagu qiyaasaa 1,982,754 qof. Dadka reer Tunis waa dad ku caanbaxay ixtiraam iyo is-saamaxid iyo wadan jecel. Muslimiintu waxay metelaan 98% dadkaasi. Waxaa intaas sii dheer in dalka ay ku nool yihiin dad badan oo daafaha caalamka ah. Haddii uu ku cajabiyay muuqaalkan, ha ilaawin inaad like saarto, commentiga aad ku soo qorto aragtidaada. Aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena Ilayska Dunida.